Asalaamu calaykum. Sheekadani maanta waxay ku saabsan tahay gabadha oo la noolaato hooyadeeda. Gabadhan waxay ahayd gabar aad iyo aad u wanaagsan. Hooyadeedna waxay ahayd hooyo aad iyo aad u fiican. Gabadhan waxay ka shaqayn jirtay harqaan oo waxay toli jirtay dharka. Waxayna ahaayeen dadka mid aad iyo aad u jecel oo gabadhan si gacan fudaadkeedana jecel. Gabadhan waxay ahayd gabar aad iyo aad iskaga faraxsan. Lacagta ay soo heshan hooyadeeda ayay hor ugu soo adeegi jirtay. Cuntadana ay ka kaalmay jirtay. Gabar waxay ahayd nolosheeda iskaga faraxsan, midabkeedana iskaga qanacsan. Laakiin waxaa dhibi jireen gabdho oo midabkeeda iyo waxay ka shaqaysa ku caan jireen. Ku dhihi jireen mar walba adiga ma cadaatid sidaan ayaa ahaanaysa. Gabadhiiba ay ka murugoo jirtay, laakiin maysan korka iska saari jirin waxa ay dhahayaan oo ku hadlayaan. Maalin ayaa waxa u imaaday islaan oo waxay ku dhahday waxaan rabaa toobka noocaas inaa gabadhayda igu tushid. Ayada ayaana kuu soo diray waqti heblaayana ayaan ku imaanay. Markaas ayay ku dhahday toobkaaga hagaagsan ayaa u imaan doontaa. Markaas ayay waxay bilowday inay toobkii tolmadiisa ay gasho. Markii uu dhamaaday ayay waxay aragtay toobkii aad inuu u qurux badnaato oo waxay ku dhahday in isku feeri ayaan rabaa. Way isku feerisay, laakiin waxay ilowday harqaankii ma aysan ka bixinin oo toobkii waa ayna ku soo jiiday waa una go'ay. Markii aragtay toobkii inuu go'ay aad iyo aad ayay iskugu naxday, waayo waxaa la gaaray waqtigii toobkii loo imaan lahaa ee balantii. Gabadhii ayaa imaaday markii aragtay toobkooda inuu go'san yahay oo waqtigiina la taagan yahay meel ay ku aadi rabtay. Waa ayna ku xanaaqday oo ku dhahday toobka waqtigiisa maasan waa ku tashay, laakiin meesha uu ku go'san yahay tahay karamsuulnimadan maxay tahay ayay ku dhahday. Markaas ayay ku dhahday isku feeri ayaa islahay oo quruxdiisa ayaa cajibisay laakiin waa iga go'ay. Markaas ayay ku dhahday toobka tolma lagu dhahay mise isku feeri. Hooyo ayuu kuu sheegayaa, hooyo ayna ku soo wacaa. Gabadhii waa ay ka walwashay. Gabadhii hooyadeeda ayay soo wacday wayna sala imaadeen. Markaas ayay waxay bilowday inay ku qayliso oo ku dhahdo toobka aniga naga gooy ma ku dhahay. Haddana meel ayaan raac aadi rabnay waxaan ka rabaa ka toobkaas oo tolan haddii aan ku imaado. Gabadhii waa ay iska walwashay oo waxay imaaday meel bannaan oo way iska oysay. Markaas ayay waxay maqashay cod. Codkii marka uu ka daray ee aragtay ayay waxay bilowday inay raadiso. Markaas ayay waxay aragtay shimbir yar inuu yahay oo aad iyo aad u xanuunsanaya. Waa ayna soo qaaday xaafadda ayay keentay oo badar iyo biyo ayayna u dhigtay shimbirkii wayna xanaanaysay. Shimbirkiina waxa ay keensatay qolka, laakiin wuxuu isku bedeshay boqorad oo waxay ku dhahday waxaan arkaa inaad wanaagsan tahay, gabar fiican ayaa tahay waxa ku walwaliya ayaa raba inaan ogaada ayaa raba ma ii sheegi kartaa. Gabadhii ayaa ku dhahday aniga toob ayaa lii dhibtay oo isku feeri ayaa islahay, laakiin harqaanka oo ku jiro mana ogeyn waana iga go'ay waana igu qabsadeen oo waxay ku dhaheen toobkayga oo si fiican ayaa ka rabnaa. Markaas ayaa ninka walwalay waxaan sameeyay aqoon sidaas ayaan u walwalaa. Markaas ayay waxay siisay laba dhago oo waxay ku dhahday waxa rabtay weydiiso. Gabadhiina waa ay faraxday. Gabadhiina waa ay macasalaameysay oo labadaas dhago ayay soo qaadatay. Waxayna bilowday in ay gashato. Waxayna noqotay gabar aad iyo aad u qurux badan oo aad u cadaan. Markay aragtay in ay aad u qurux badnaatay ayay gabadhii aad u faraxday. Farxadna waa ay celin weysay oo way ay boodbooday. Hooyadeeda ayaa qayladeeda ku soo baxday oo ku dhahday gabadhayda maxaa kugu dhacay? Maxaa waaye waxaan aad wadatidna dharkan iyo waxaan intee ka keentay? Markaas ayay ku dhahday hooyo waxay siisay boqoradaas oo waxay ahayd shimbir yariis ah waana caawiye. Markii dambe ayay waxay isku bedeshay boqorad waxayna i siisay dhagaas oo waxa rabtay weydiisay ayay ku dhahday. Gabadhiina dhagihii ayay soo qaadatay oo toobkii ayay keentay waxayna ka codsatay toobkaas inuu meeshaas u hagaajiyo wayna u hagaajiyay. Gabadhii markii aragtay toobkii inuu hagaajiyay ayay aad iyo aad u farxday wayna soo qaaday toobkii waxayna u keentay gabadhii lahayd oo waxay ku dhahday toobkaaga waa kana hoo qabso. Gabadhii markii aragtay aad iyo aad ay ugu faraxday. Gabadhii maalintaas ka bacdina dhagahaas ayay wax weydiisan jirtay oo waxay rabtana waa la sii jiray. Sheekadiina halkaas ayay ku dhamaatay. Haddii aad sheekada ka heshay subscribe noo saar. Haddii subscribe uu ku yaane muuqaalka like noo sii waana ku mahadsantahay daawashada. Waxaan inka tagay asaas iyo nabadgelyo. Maca salaamo.